odayaashii sheekadu waxay kaloo dhegdheer ku tilmaameen hore ahayd gabdhaha kale lamid ah oo qurux badan kolkii ay gashaanti noqotay ayaa la guursaday waxayna dhashay 3 gabdhood dabadeed iyada oo reer leh ayaa dooxada nugaaleed ee ay ku noolaan jirtay waxaa ka dhacday abaar xuno dad iyo duunyaba lagu hoobtay gaajadii markay u adkaysan weydana dad qaato ayay noqotay hilibka dadka ayay maansatay markaas bay cunno kasta oo ka go'day si ay haddaba dhallaanka u xisageliyaan odayaashii sheekadu waxay muuqaallo aad u falxun ka bixiyeen isbedeladii dhegdheg ku dhacay kadib markii ay dad qalatowday waxay ku tilmaameen qof aad u buuran aad u xoog badan aadna u dheeraysa haddii qof cayrsanayso sida dabaylaha ayay u xiimi jirtay cid ka baxsan kartaana ma ay jirin waxaa la yidhi waxay lahayd timo cad oo markay ordayso sida saynta fardaha ay dabayshu gadaal ugu sayrto waxay kaloo ahayd baa la yidhi inta aad u gudguduudan waxayna wax ka arki jirtay dhul aad u fog awoodda maqalkeeda ayaa intaas ka darayd maalin gelinkeed meel loo socdo ayay wax ka maqli jirtay haddii xataa ay waxaas yihiin laan ay dabayshu geedaha midkood ka jabisay dhacdeeda labadeeda dhagood way kala abuur duwanaayeen mid baa tan kale ka dharayd waana halkii uu magacu ka raacay kolkay jiibsato ayay dhegtaas dheeri kor u lignaan jirtay ilaa ay gamacdo markaasoo ay dhulka ku dhici jirtay odayaashii sheekadu waxay kaloo dhegdheer ku tilmaameen inay waayadii dambe bahal u ekaatay hilibkii dadka siday u cunaysay ayay yeetay miciyo kuwa uubatada aan laga aqoon iyo cidiyo kuwa gorgorka u eg xoogga kala mid ah cidiyahaas iyo mindi af badan oo gaaleefa ayay ku dili jirtay kolba qofkii ay maalintaa soo ugaarsato siday sheekadu leedahay dadqaatadu waxay lahayd hamaam ka tira badan qoyska Soomaaliyeed ee reer miyiga ah kuwii uu lahan jiray badanaa qoys waliba ugu badnaan wuxuu ku aqdaaman jiray 5 haamood ama ka yarba iyada kuwii waxay ka koobnaayeen 10 haamoodoo mid mooye inta kale ay biyaha ku kaydsan jirtay midda tobnaadi waxay ahayd qarsoodi oo xataa gabdhaheedu kama warqabi jirin waxa ay habartu ku fasho waana hilibka dadka ay qalato si ay ku ridan jirtay magaca bay lahaydo waxaa la oran jiray bowdheer markii la buutiyana dhulka meelaha ugu fog ayaa laga maqli jiray dhegdheer aad bay u argagax gelisay nolosha bulshadii reer miyiga ahayd ee ay dhexdeeda ku noolay carruur iyo waayeel dumar iyo rag wadaad iyo waranle cid u dagatay oo ay dayn jirtay ma ay jirin meeshii lagu sheegaba 4 geedi baa looga guuri jiray markaas baa dadkii naftii isugu timid carruurtii baa xoolihii loo dirsan waayey 2-3 nin in la isku raaca mooye socodkii kelida ahaana waa lagu dhici kari waaye si la yeelo iyada oo la garan laayahay ayaa dhalaartii dambe waxaa aqaladii dhegdheer ku soo leexday gabdha habow ah oo aabahood catir caana ku nuuge wax uu siiyey intuu waayey uu duurka ku ambiyey mid ka mid a aqaladii kolkay galeenna waxay ku arkeen gabadhii dadqalatada oo tiirdhaxaadka ku xiran markaas bay weydiiyeen gabarey maxaa meeshaan kugu xiray markaas bay u warantay oo ku tiri meesha waxaan ugu xiranahay hooyaday oo aadad qalato dhagdheer dhowr jeer ayaan isku day inaan ka baxsado sidii ay yeeleen 2 gabdhood oo walaalo aanu nahay sidaa daraaddeed ayay mar walba oo ay ugaarsi tagto halka ay igu xirataa aniguna inkastoo aan ina dhagdheerahay haddana dad qalato maahi hilibka dadkana ma cuno walaalayaalo way iga teginina gabdhihiina markay ogaadeen aqalada ay joogaan inay kuwii dhagdheer yihiin ayay naxeenoo naf iyo nololba ka kolkaas bay waxay ina dhegdheer ku yiraahdeen gabarey annagu waan iska cararaynay nabaday markaas bay ku tiri hooyaday hadda waa inagu soo dhowdahay kamana carari kartaan iska jooga meel baan idinku qarinayaa dabadeedna markii ay seexato oo ay dhagteeda dheer u dhacdo ayaynu isugu tagaynaa oo dilaynay ina dhegdheer oo 2 gabdhood raar ku duurtay ayay duqdii timid hadiiba intay dab shidatay ayay ku ridatay wiil yaroo ay soo ugaarsatay gabadheedii oo halkeeda ku xiran ayay inta xarigii ka furtay waxay ku tiri namaanday markii dugsigu karkaro oo hameenku kala barmay toosif iyaduna way daalanayde way iska jiibsatay ha yeeshee intaysan gam'in ayay si uun u dareentay in reerka lagu jiro oo iyada iyo gabadheeda lagu weheliyo markaas bay tiri namaanday maxaa urahayana sahable ugu baawrahaye gabadheedii baa kolkaa ku tiri hooyo waa kuwaygee ma anigaa hunguri iga kaa galay wax yar kadib ayay haddana la soo booday namaanday gari buuran oo gabdheed baa ii urahaya hooyo waa taydee ma anigaa hunguri iga kaa galay ayay gabadheena tiri cabaar kadib ayay haddana inta soo hanqatay oo suxulka mudatay waxay tiri namaanday xulus gabar ugu baa ii urahaya waa kaygee ma anigaa hunguri iga kaa galay markaas bay ugu jawaabtay haye intay tiri ayay iska aamustay oo hadiiba gamacday markaabaa dhegteedii dheeray
dhulka ku dhacday markaabaa saddexdii gabdhoodna isu yimaadeen digsigii karkaraya fuudkiisii intay 3 weel ku kala shubteen ayay dadqalatadii dhegta kaga shubeen iyadiina haddiiba xanuunkiibay la soo boodi se waa cabaaday afkii ay kala qaadayba fuudkii u haray bay gabdhihiina dalqada shax kaga siiyeen markaabay dhulka isbeliqday cabaar yar kadibna way dhimatay isla markiiba roob aan xilligiisii la gaarin oo dayr iyo gu aan midna ahayn ayaa buuraha xargaga iyo agagaarkooda ka da'ay kolkaas bay gabdhihii heeseen waxay yidhaahdeen dagdheerdimatay rooley dhulkiina maaday rooley allaw roona rooley sida muuqata sheekada dhegdheer waxay leedahay duluc dhow iyo mid shishe tan dhowi waxay tahay in xilliyada ka mida ay dhulka soomaalida dadqalata ka jiri jirtay ifafaalahaas oo ay abaaruhu sababi jireen dulucda shishana waxay tahay in ugu dambaysta khayrka iyo sharka uu khayrku gacanta sare leeyahay inkastoo mararka qaarkood la moodo inaan sharka loo babac dhigi karin taana waxaa inoo caddaynaya sidii fududayd ee hablo yaryari ay u dileen qoftii waayeel oo dhammi uu wax ka qaban kari waayey bulsho weynta cid ka badbaadisa qoftii la waayey qoftii laga harsan waayey laga hoyan waayey ee laga soo xeraysan waayey waxay haddaba dhegdheer u taagan tahay sharka iyo xumaha halka ay gabadheedu u taagan tahay khayrka iyo wanaagga dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga